meeshaan maanta waxaan gudoomiyaha balmiga jaamiyadda balmigaam ayaa ku wareysanayna isagoo laba kelmadood bahaya xasan sheekh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وصلت سعادة وصلت هذا فرح العوض وحضرتك يعني ويمكن حسن الشيخ فلوس وطبعا الدرب وانت قصر علينا هاي كل هذا ماشي waxaan soo dhaweynayna xasan Umar Cabdulle magaciisa xalay isaga ay sheegayaan ku soo dhaweynayna aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay doorashadaada madaxweyne soo dhawow taariikhsannahay caawa xafladan waxaan uga imid Sweden waxaan maaragtay aad iyo aad ugu faraxsannahay shacabka Soomaaliyeed dhammaan doorashadaada aad iyo aad ugu farxaynaynaa waxaan kaa codsanaynaa in magaalada Muqdisho golaha deegaanka loo dhiso loo sameeyo nidaamkeedii Soomaaliya waa magaalo madaxdeedii waa wadnaheedii waa maskaxdeedii waa beerkeedii adeega meel way hagaajisay magaalada Muqdisho kula deegaan amnigeeda la sugo aad iyo aad baan ugu magaciisa maxalla isaga ay sheegaya magaalada ku yimaado magaalada عاجل
جالية برمجة أبو بكر حاجة شيء أجوبة سولو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قريب جدا مكان محلية الآن جريدة إن شاء الله بدينا حنتلاقيه هنا بولد يعني ونصلي في إن شاء الله تعالى الله توكل هذه المؤسسة ورسالة مؤسسة رسالة الوضع وبوري الله dowladda federaalka ee hadda magacaabi doono iyo kuwii horeba hadda isbeddelkii haya baarlamaanka waxaan keliya aan jeclahay inaan ka dhigo qodobka ugu horeeya waxa weeye waddan walba horumarkiisa iyo himiladiisu waxa ay ku xiran tahay sida ay u fakiraan dhalinyaradiisu marka waxaan jeclahay dhalinyarada halkan joogta miisaankooda UK inay xoog saaraan sidii ay ugala shaqayn lahaayeen dowladda federaalka sidii nabadgelyo waddanka looga dhigin lahaa dowladda waxyaanoodasu innagu waa in ay pressure saarnaa dowladda si ay nabadgelyo dalka uga dhigin waxaan kaloo jecelahay inaan halkan yeelanaan ka caddeeyo Somali diaspora waxa ay samaysay waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin in ay isugu keeneen Somaliland iyo Soomaaliya ay isugu keeneen dalka UK oo wadahadaladii ay bilaabeen sida ku cad waddanka Ingiriiska dowladkiisa laga helayo marka waxaan doonayaa haddana ballan qaadana haddaan nahay jaaliyadda inaan marlabaad bilowno oo aan falasha saarno madaxda Somaliland iyo madaxda Soomaaliya si wadahadalka bagada xalaali ugu dhaboon nabadgelyada waxaan kale oo aan jeclahay halkan idinka idinku buuriyo walaalayaal damiirku ha idin shaqeeyo in dalkiina iyo dadkiinni maalin walba al-shabaab bil walba ay qaadanayso 15 milyan oo abaarayna dhibaato ku jira marka waxaan leenahay nabadgelyada iyo sidii al-shabaab dalka looga tirtiri lahaa aynu fadhigeed qabanno arrintaana dhammaantiinna walaalayaal waad mahadsantihiin wuu mahadsan yahay gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan rabaa markan in la i dhegaysto aan u yeero farduus maxamed bootaan oo ku hadlaysa magaca dowladda Somaliland فردوس Somaliland على صدويو Somaliland فضلا وطننا هلا بنايو Somaliland وطننا هلا بنايو Somaliland وطننا هلا بنايو Somaliland وطننا هلا بنايو على صدويو صعبك Somaliland على صدويو
سياسيين تواقار لكن شعب هو يسكن منه مرة كان شعب مننا إلى نقعنا يستمصروا أمي ذو وحده عن مكتب أو هناك يا سمعتي يا شرفة يا هذا طبعا رسول كان يقول هذا الكون يصير واصلة هذا الكون يصير مسلم الله قصد قلبي ليس أمر لياتيني وأقول شيئا يرجعوا بالله عليكم وحمد الله وأنا يدي الله يدي من نبيين dhibaato naguma kiin jirto haddaan shacabna hay ilaahay haydin guuleeyo dhibka markaynu ku dhacdaanna hawaynu ku dhacdaan xanuunkuuna taabtaan waxaanu ka raallinahay inaad midowdaan waxaanu ka raallinahay inaad xorowdaan waxaanu ka raallinahay inaad tashataan waanu ka raallinahay inaad tashataan guriga walaalkaayo wanaagsan waad ku nasanaysaa guriga walaalkaayo wanaagsan waad tegaysaa qofka walaalkaayo waxaan garabbaad siinaysaa adiguna waad isku hallaynaysaa annagu waxaa ogaataan inaan